madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein inta aanu dilka lagu xukumin ka hor khudbadii taariikhda gashay ee ka horjeediyay maxkamadda dalkaasi ku taala. Saddam ayaa la soo galiyay asigoo gacmaha ka xidhan. Markii maxkamad la soo taagay kadib ayaa xaakimkii ama qaadigii ayaa Saddam Hussein Allah u naxariistay magaciisa weydiiyay. Kadibna wuxuu Saddam Hussein uga jawaabay dastuurka Ciraaq waan xushmaynayaa, laakiin dastuur uu Bush wax ku daray ma ahan midka aan xushmeeyo. Asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri magacaygu waa macruuf mana kuu sheegayo bise Bush ayaa su'aashan ku soo dhiibay. Xaakimow ayuu yiri Saddam oo hadalka sii wata waxa uu yiri islaamku waa dawlad guuraysa, adiga xaakim waxaad halkan u fadhisaa dano iyo fikrad Mareykan, waan isognahay dhammaanteena. sidaas ayuu yiri Saddam oo salaadii loo diiday waxa uu yiri 2 jeer waxaan kuu sheegay in waqtiga salaada casr la joogo, laakiin waad iska indhatirtay. sababtu maxay tahay xaakimow ayuu yiri Saddam. ka cabsan maayo qofna xitaa adiga iyo wixii la mid ah ayuu yiri Saddam. waxaan kaliya ka cabsanayaa Allihii abuuray ayuu yiri Saddam. mar uu xaakimkii hadalka ku celiyay Saddam Hussein ayuu sidaani ugu jawaabay xaakim aniga ma ahi arday wax ka dhigta iskuulkaaga, igu xushmay inaan ahay madaxweynahaaga ayuu yiri Saddam. waxaan ku tusay dhaawacyada Mareykanka ii geysteen, wali waad aamini weysan tahay sababtoo ah Bushka xun ayaa kugu jiri. kelmad walba oo Saddam uu ku sheego yaan la rumaysan. kelmado uu Saddam uu yiri ay xasuuso ay ku reebeen shacabka reer Ciraaq. waxa uu yiri Saddam dadka marqaatiyaasha ah waxayna ka dhex hadlayaan qol aan daaqado lahayn, macnaha aan ula jeedo waad fahmi kartaa ayuu yiri Saddam oo hadalka sii wata waxa uu yiri daanyeerada markay ku qoslayaan geedaha korkooda, libaaxyada wax cara ah uma muujiyaan ayuu yiri Saddam. habarkii uu Bush iyo Preseska u habaaray waxa ka mid ahaa Saddam naclatullaahi Bush iyo Preseska Israa'iil. waan ogahay in maxkamadani ay kor joogto ay ka yihiin, laakiin maalin waxaa dhacaysa aadna ka shalay doontaan ayuu yiri Saddam. kitaabkaas gacanta igu jira ayaan aaminsanahay, waligeyna aaminsanaa ayuu yiri Saddam. wax geeri ah kama baqayo, laakiin Ciraaq waxaad gacanta u geliseen yahuud iyo kufaar ayuu yiri Saddam oo hadalka sii wata waxa uu ka hadlay carabta iyo gumaysiga ay ku jirto. carab oo dhan waa gumaystayaal kor laga haysto ayuu yiri Saddam. arag Sacuudiga, arag Imaaraadka, arag Kuwait iyo maanta xaaladda ay ku jirto Ciraaq ayuu yiri Saddam. waxaan ka xumahay anigoo arkaya in dalkayga lagu soo duulay, in dadkaygana ay gacmaha iga xiran ayuu yiri Saddam. dhageysta shacabka islaamka marnaba ha ogolaanin in dalkiina ay soo fargeliyaan yahuud iyo reer galbeedka ayuu yiri Saddam. kuwa daciifiin oo idinka mid ah ay qalbiga ka xadayaan, kadibna dalkiina ay la wareegayaan. waqtigii rasuulkana waa ay jirtay arrinkan ayuu yiri Saddam asigoo hadalka sii wata waxa uu yiri Allah weyn. maxkamadda markii ay ku dhawaaqday in ugu dambeyntii la daldalo madaxweynihii hore ee Ciraaq ayuu yiri Saddam isagoo aad u qeyreysan Allah weyn. Ciraaq way jiraysaa Saddam, geeri kama baqayo, gaalo ayaad u shaqaysaan ayuu yiri Saddam oo dalkiina gacanta u gelisin gaalo iyo reer galbeedka ayuu yiri Saddam oo hadalka sii wata waxa uu yiri Allah weyn, Allihii i abuurtay ayaan dib ugu noqonaya naclatullaahi Mareykan iyo wixii taageersan. geeridu waa xaq. Saddam waa baxay shacabka Ciraaqow ayuu yiri Saddam. kadib isagoo salaada sunno ah tukaday, kadibna kitaabka aayado ka akhristay ayaa la daldalay maalin ciid ah. Saddam ayaa sidaas ku geeriyooday. hadalkan ayaa noqday hadal dhaxalgal ah, ay muuqdaan ficilladii Saddam uu sheegayna ay ilaa hadda ay jiraan, ay ku santan yihiin dalalka Carbeed. Saddam waxaan leenahay Allah u naxariisto, wuxuu ahaa geesi oo hiil waayay ayaan oran karnaa. qabrigiisa Allah u waasiciyo,
jannatul firdaws allah ka waraabiyo. barnaamijkan waxaa idin socodsiinayay anigoo cabdiqaadir xuseen. tan iyo mar kale inta aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo assalaamu calaykum.